Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Walaalaha qiimaha badanow, muddo badan oo aynu kala mashquulsanayn isku soo noqod wanaagsan. Xarunta cilmi baadhista dhanka caafimaadka gaar ahaan uurku jirta ee loo soo gaabiyo NIH ayaa soo saartay daraasad cusub oo ay ku samaysay geedka cirqisuus iyo daaweyntiisa xanuunada ku dhaca uurku jirta. Waxaanay sheegeen in 20 qof oo ka cabanayay xanuunada dhinaca caloosha ay siiyeen geedkan cirqisuuska muddo 30 maalin oo xidhiidha. Waxaanay sheegeen in dadkaasi qaarkood ay ku caafimaadeen halka kuwa kalena ay ka heleen natiijo wanaagsan. Sidoo kalena waxay sheegeen in 60 qof oo la noola xanuunka kansarka gaar ahaan kansarka ku dhaca cunaha ay siiyeen geedkan cirqisuuska muddo 2 bilood oo xidhiidha, iyagoo markaa kadibna sheegay inay baadhitaanka ku ogaadeen inuu geedkani dawo u yahay xanuunka kansarka ee ku dhaca dhuunta iyo caloosha, iyagoo sheegay in geedkan ay ku jiraan maadooyin burburiya kana hortaga unugyada fidiya kansarka. Sidoo kalena waxay sheegeen inay daraasadan ku ogaadeen inuu geedkani dawo u yahay dhammaan xanuunada ku dhaca sanbabka, iyagoo sidoo kalena sheegay inuu geedkani dawo fiican u yahay dhammaanba xanuunada ku dhaca maqaarka sare ee jidhka. Waxaanay sidoo kale sheegeen inay daraasadan ku ogaadeen in dadka buuran ama dadka aadka u cayilan haddii ay isticmaalaan geedkan inay ka badbaadayaan xanuunka macaanka ama sonkorowga. Haddaba dhinaca kalena 4 nooc oo dadka ka mid ah ayaa lagula taliyay inaanay gebi ahaanba isticmaalin geedka cirqisuus, kuwaas oo kala ah: 1 dadka qaba xanuunka dhiigkarka, 2 dadka qaba wadna xanuunka, 3 dadka qaata kiniinno kale, 4 ruuxa dumar ah ee uur kale. 4 nooc ee dadka ka mid ah ayaa lagula taliyay inaanay gebi ahaanba isticmaalin geedka cirqisuus iyagoo aan la tashanin dhakhtarkooda. Ilaahay baana cudurka iyo caafimaadkaba haya. Ilaahay waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taama. Mahadsanidin.